السلام عليكم. وأنا عبد الله سعيد حسن waxaan joogaa saaka qabuuraha Galdogob ee ku dhow isbitaalka weyn ee Galdogob. qabuurahaas oo xaafadihii ay dhan walba ka mareen iyo biyaanateeradii ereyadoodana la degdegayo xaqna u leh in la iska asturo oo la awdo intii dadka iimaanka daran ay qabuuraha duldegi lahaayeen. qabuuruhu saad ogtihiinba qabiil ma leh, qola gaara ma ahan, cid gaara oo u xilqabtaana ma jirto, laakiin qof hadduu wax ka cawdo dad buu yeelanayaa. marka cid kasta ee ka qayb qaadan karta waxaan rabnaa inaan qabuurahan haddii ilaahay idmayo samayno in aanu qabuurahan haddii ilaahay idmayo dhisno, dheeriyar ku wareejino oo mid jira oo bal xoolaha iyo dadku kaga leexdaan inta qabuuruhu yihiin lagu aqoonsado oo aan dadku si aysan ugu degdegin. marka haddii kale ayr baa loo soo haftirtirayaa waana la dul dhisanayaa, dadkana dhul buu doonayaa. ereyada qabuurahan ku yaalaana dhulkiisu hadda 4 buu gaaray. waa dhul